بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ومركلة برنامج كأني تربية عرورته برنامج كأن ما أنت وحكو سابسين يهي أرين آدي آد عجيب أرين تاسوعة باريتان سنة كمركوها كون سقال بغل تضواتني يلا بدي لقو سمي عرور يرير وحالي هذا باريتان كان بارس علميات كان مجي عيسى تجابة دي وحالي هذا نعنع سونكركا نعنع عادرك دونتان أما أركيسان ومقال كيسو يدين الموقضو waxaan nacnac sonkorka la yiraahdo caano iyo sokor laga sameeyay waayidii horta Soomaaliya laga sameeyay jiray ilaa haddana koonfurta Soomaaliya laga isticmaalo xogay qaabkiisu uu ka duwan yahay qaabkay u sameeyaan laakiin nacnacu kaas weeye caruurtana ay aad u jeceshahay nacnacaas ayaa sanadku markuu ahaa 70meeyadii baad uu soo bilaabatay laakiin tijaabadu waxay soo baxday 72 nin professor ahaa magaciisa psychologist ah la oran jiray Walter oo Mareykan ahaa ayaana tijaabada sameeyay tijaabada marka ujeedooyin baa laga leeyahay ujeedooyinka laga leeyahay iyaga gadaal baan ka sharaxi doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan muuqaalka idin la wadaago iyo tijaabada sidii loo sameeyay caruuro badan ayaa la soo ururiyay meel institute ama macad ah oo jaamacadda ka tirsan oo tijaabada lagu sameeyo ayaa caruurta la isugu keenay ilmo kasta waxa la soo gelinayaa qol ama koox baa loo gelinayaa ilmaha waxa la fariisanayaa miiska kadib saxan yar oo cad baa waxa loo saarayaa hal xabo nacnac qofka tijaabada sameynaya baa la hadlaaya wuxuu ku leeyahay xabadaas nacnaca ah haddaad doonto hadda waad cuni kartaa adaa ikhtiyaar u leh xora haddaad doontana xabadda nacnaca ah waad sugi kartaa waan soo noqonayaa meel baan ka soo laabanayaa markaan soo noqdo waxaan ku siinayaa 2 xabo haddaad korato sugto haddii aad koran kari weydana haddaad cunaysaa adaa ikhtiyaar u leh dambaleel yarna waa la ag dhigay oo waxa lagu yiri ilmaha meel kugu dhow baan joogaa laakiin isoo yar markii maaragtay aad u baahato inaad cunto oo gambaleelka yeeri caruurtii marka dhowr qaybood bay u kala baxeen dabcan isku mid maaha sidii hadba loo soo koriyay waalidkoodu wuxuu soo baray bay ku xiran tahay maskaxdooda caqli loogu shubay taasa maaragtay saameyn ku leh ilmo iyadoo aan iridiiba qofkii ka dhaqaaqin oo dul taagan yahay hadalkii wato iyo xabadii nacnacaayda faya afka gashaday ilmo goortii gabadh qofka testerka uu tijaabinaya uu ridda ka sii baxayay buu nacnaci cunay ilmana 5 daqiiqo kortay ilmaha 10 daqiiqo kortay sharciga marka nidaamka tijaabada waxa weeye ugu badnaan 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ka badan inaan ilmaha laga maqnaan oo loo soo noqdo intaas ku eg tahay korashadu ujeedka marka laga leeyahay waxa ay tahay waxa la eegayaa saburka iyo korashada ilmahan self controlkiisa naftiisa siduu u xanibi karo rabitaanka xoog gale oo nacnac sonkorka ah caruurtu jeceshahay uu rabo si isu caburin karo ilmaha waxaba yaraatee la siinayaa ma jirto isku mashquuliyo kursiga miiska saxanka iyo nacnaca horyaal weeye waana arrin aad u adag markii ilmo yar la fiiriyo waxbad nacnaca oo nacnacu jeclaayo oo magaciisa yaqaan uu horyaalo uu daawanayo sida aad u jeedaanin laakiin ay muhiim tahay oo la tijaabinayo inuu gurigiisa rabitaanka ku jira uu caburiyo ismashquuliyo kadibna markaa uu maaragtay uu korto hoosigo si uu laba u helo waayo intii in ka badan buu helaya waxa la helaya baana muhiima inta ilmaha u muuqanayso iyo in kale to baa la kala tijaabinaya waa aniga oo mesela kugu yiri haddaad doontana maanta $1 baan ku siinayaa haddaad rabtana koro oo qof weyn ku iri 10 sano kadib baan waxaan ku siinayaa $10,000 dabcan kulligeen waxaynu dhahaynaa war aniga 10 sano inaan noolaanayo ma aqaan mana sugaaye oo xataa hadii lagu yiraahdo waa laga dhaxlaaya oo dadkaaga la siinaya qof koranaya ma jiro qofka 10 ku la boodaya waana 10 laab bay kala badanta waa 2 laab hadda farjir sida idin muuqata ilaa 6 jir baa ugu weyn waa 4 sano 5 sano iyo 6 sano jiraan intaas ay ka dhaxayaan saddexda group way tijaabada marka gadaal baan ka sheegi doonaa ujeedka laga lahaa iyo markii dameeto caruurtii waxa lagu sameyn doonaa dabagal iskuuladii markay bilaabaan baa la eegi doonaa dugsiga dhexe markay ka baxaan dugsi sare markay ka baxaan jaamacad markay ka baxaan ilaa ay guursadeen oo 40 iyo 50 gaareen waa la daba joogay ma garanaysaa oo waa la eegay noloshooda la socday arrin marka cajiib ah baa meesha ka soo bixi doonta oo markii dameetana laga qaatay aqoon aad u sareysa oo maanta dugsiyada adduunka ka jira wadamada ugu horumarsan ilaa hadda ay la isticmaalo oo lagu dhaqmo taasa marka waxaan rabaa in waalidku uu ka faa'iideysto fahamna u yeesho horaan dhowr jeer baan uga hadalay muddada 7 sano ah oo caruurtu la korinayo 7 sano u horeyso iskuulka ka horeysa muhiimadda ay leedahay inaan taa fahamno iyo waxyaabaha ilmaha loo baahan yahay in waalidku baro arrinkan marka runtii wuxuu salka ku hayaa diinteena islaamka ba 1400 sano iyo siyaada ka hor arrinkan la soo degtay
inaynu inaguna nafteena baro caruurteena baro qoysaskana guryaha arrin lagaga dhaqmo inay tahay inaynu arrinkaa leenahay iyadana gadaal baan ka sharxi doonaa meesha diintu ay ka soo gelayso laakiin bal hadda aynu daawano caruurta bal aynu aragno oo markaa sharaxaad ka bixino sida ay samaynayaan right then and there, or they could wait until I came back into the room and have 2 marshmallows. I left them alone in the room for 15 minutes. Take a look. The marshmallow test has been used for decades by psychologists. It's been used with children to predict later academic success, including literacy, SAT scores, and other academic outcomes. There's no definitive answers from the marshmallow test. It's not a matter of passing or failing. What we're looking for is whether children can really resist this piece of white candy sitting in front of them that's sweet, that, you know, the smell of it, the allure of the marshmallow. In Pratmesh's case, we really saw this added curiosity because he had never actually tasted a marshmallow before. All of the children managed to show some level of self-control and resist the temptation to eat the whole marshmallow. As you can see from the footage, you can catch a glimpse into children's ability to control their impulses. This ability, which is developed around the time of kindergarten, can be linked to other outcomes later in life. At the end, the marshmallows were in kind of different states. Some had been squished, ripped apart, nibbled around. There was this temptation and there was this impulse to kind of try it out. waa daawateen baaritaankan hadda dambe oo aad u jeedeen waxa la sameeyay 2010 dhawaan ayaa la sameeyay 4 caruur ayaana lagu sameeyay ujeedka laga leeyahay ugu weyn baaritaanku wuxuu yahay bal in la baaro ilmuhu inuu yaqaano inuu caburin karo ama saburi karo ama koran karo rabitaanka xoog leh oo gudaheena ku jira oo ah inaynu wax helo waxa aynu helana markaba aynu ku raaxaysano wixii oo ku istimtaacno arrinkan marka waa arrin soo jireen ah diinteenu la soo degtay in ilmaha saburka la baro inaynu inagu saburka baranno in dunida maaragtay inaan ku talax tagin waxyaabaha noocaasa laakiin waxyaabaha hadda dhaqankeeni ka baxay sida akhlaaqiyadka cuntada oo kaleeto inaan cuntada la daadin in wax yar la cuno in ilmaha saburka la baro waxyaabaha aynu ka boodnay waana waxyaabaha dadkaani ay akhlaaqiyad ahaan diinteena kala soo baxeen oo ku istimtaacayaan sida aad u jeedaan in caruurtu waxa ay sameynayaan waxay caburinayaan rabitaankaas iyaga oo adeegsanaya farsamooyin yar yar inay kursiga hoostiisa galaan ismashquuliyaan inuu shaygii qaado inuu ursado wajiyadooda si fiican u fiiri xataa markii dambe loo yimi waxa loo yimi iyagoo nacnici iyo jijibiyay oo burburiyay laakiin aan cunin waana wax wanaagsan runtii arrinta marka cajiibka waxay tahay oo baaritaanku ku saabsan yahay caruurtan aad u jeedaan markii 4 jir 5 jir 6 jir baaritaankan lagu sameeyay waxa la isku sameeyay dabagal sidaan markii hore taba soo sheegay noloshooda ayaa la dabagalay markay dugsiga dhexe ka baxeeyeen waxa loo tagay caruurtii koratay oo 15 daqiiqo 20 daqiiqo 10 daqiiqo wixii ka koreeya saburtay waxa ay noqdeen caruur aad u akhlaaq wanaagsan iskuulada buunta sare keena caruurta u sareeya ku jira sidoo kale jaamacadaha markay galeen baa la baaray waxa iyadana la ogaaday caruurtii koratay oo 10 daqiiqo iyo wixii ka badan dul qaadatay ilaa 15 daqiiqo inay noqdeen sidoo kale iyaguna caruur jaamacadaha ka qalin jabiya jaamacadii aan ka tagin sabur badan oo wanaagsan kadib waxa la daba galay markay guursadeen oo shaqo bilaabeen waxa loo tagay iyaga oo kuwii ma garanaysaay saburka lahaa ay noqdeen kuwa nolosha maartay ku istimtaaca oo qoysas wanaagsan yeeshay furiin aan samayn caafimaad ahaan kuwii kale ka fiican dhinaca maaragtay akhlaaqiyadkii kaga fiican ka dhaqaale fiican ka aqoon fiican baa loo tagay kuwii aan saburin oo nacnaca horay ka cunay daqiiqadii u horeysayba oo koran waayayna markii iyagana la daba galay waxa la ogaaday inay badankood nolosha ka dhaceen inay baaba'een inay maaragtay guurkii ay ku guuleysan waayeen waxbarashadii inay dhammaystiri kari waayeen dhibaatooyinka ujeedka marka muuqaalkan aan ka leeyahay waxay tahay in waalidka Soomaaliyeed uu fahmo 7 sano horeeto macnaha ay leedahay qaabka marka ilmaha saburka loo baro iyada insha Allah 10 dameeto ayaan kaga hadli doonaa 7 sano hore qaabka ilmaha saburka loo baro sida waxyaabahan iyo farsamooyinka la adeegsado oo waalidku maaragtay uu ugu dulqaato qaabku ilmihiisa uga dhigi lahaa ilmo aqliga ka koran waa marka la tayo tarbiyadii caruurta waan idin salaamaya anigoo ah Muuse Siciidow Muuse insha Allah kulanti dambe ayaynu ku kulmi doonaa waxaan qofkii doonaa wuu iska baari karaa wuuna xaqiijin karaa baaritaankan waa wax jira dhamaantii waa mahadsantihiin